السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore inta waxaan kaaga mahadcelinayaa Bulsho TV maanta booqashada igu maatay xafiiskayga iyo dhamaan waxaan ka salaamayaa macaamiishayda hore kuwa hadda soo socda insha Allah. qodobo badan jira dadkeena ay wax yar yareystaan si markaan ka imaano wadan kale oo wadankan imaanay wadan walba sharci duwan uu leeyahay waxyaabaha ugu waaweyn dadkeena saameeya waxaa kamid ah qofka inuu permit gaari iskaga wado waxyaabaha dhici kara waxaa kamid ah qofkii permitkii in laga qaado waxaa kamid ah in gaariga laga jiido waxaa kamid ah in ticket la siiyo haddii qofkii da'diisa yar tahay oo qof yacni waalid ka mas'uul yahay ama guardian ka mas'uul yahay qofka hadduu yahay marka waxaa laga yaabaa in qofkii la dhaho maxkamad imow la dhaho ilaa 21 aad ka gaarta gaari ma wadi kartid ama ilaa la dhaho 18 aad ka gaarta gaari ma wadi kartid oo yacni dhibaato weyn u samaysa especially yacni qofkii hadduu waxaa laga yaabaa qofka da'i uu iska ilmo da'yar waad garanaysaan yani waxaa laga yaabaa inuu permit wadanba uu leeyahay permit ama maba lahaba permit sometimes waxaad arkaysaa qof ilmo yar gaari iska wada oonan permit lahayn oonan yani waxyaabo waaweyn macnaheeda qofkii xabsigaa la geyn karaa permit ma lihid license ma lihid marka waad garanaysaa waxa dhibka ka soo gaari kara tan kale qofka ka soo gaarta waxa waaye qofkii haddii ticket la siiyo maxaad samayn kartaa ticketka haddii lagu siiyo booliiska wuxuu ku dhihi ii saxiix meeshaan waraaqdan macnaheeda waxaa haystaa 21 maalmood maalintaad saxiixdo laga bilaabo intaa haddaad ticketka bixin weyso dawladda waraaqay kusoo diraysaa lagu dhahayo waraaqdaa bixi ama permitkaada ama licenkaada lagaa kansalaya haddii waraaqdii iska dhagooliso ama address qalad aad degnayd waa muhiim qofka in mar walba addresskiisa up to current way dadkeena waad garanaysaa address kale qof ku qoranayaa addresskii waraaqdii uma imaanayso marka mar walba waxaa fiican in address adi lagaaga hagaago ama qofkii walaal hadduu address ku yahay inaad u sheegatid oo dhahdid walaalo warqad muhiim ah hadday ii soo dhacdo ama every 2 week aad qofkii wacdood u tagto dhahdo walaalo waraaqdeedii wax waraaqa ma ii soo dhacdo tan kale haddii ticketkii lagu siiyo mar walba dadkan waxaad arkaysaa booliisku waa bini aadan wuu qaldanaan karaa gardarro uu samayn karaa waxbuu u malayn karaa waa shakigaa badan haddii aad isdhahdo ticketkan qaladaa laygu siiyey marka min fadlan dawladdii tag waxaa jira wax la dhahaa hearing officer waad u tegaysaa waxaad dhahaysaa ticketkan qaladaa laygu siiyey saan muxuu qalad u ahaa waana caddayn keensataa sidaan uu qalad u ahaa haddii qofkii wax kaa qaban waayo wuxuu ku dhihi laba choice aa leed ama maxkamad tag dheh dadkeena maxkamad haddii la dhaho waxay u maleeyaan wax weyn yacni in qofkii ka hilaabay creditka waxaa ma aha qofka maxkamad waxaad u tegaysaa labadiina adiga iyo booliiska waxaa tihiin civil yani adiga asigii meesha soo istaagaya adigii meesha soo istaagaysaa asi wuxuu sheegayaa sababta ticketkan ku heshay adna waxaad sheegaysaa sababta ticketkan aadan ku heli karaynin aad ku saxsantaa aadan ticketkaa in lagu siiyo aysan ahayn haddii qofka labadiinaba jaadkaa go-aan ka gaaraya markaa qofka booliiska go-aan ma gaarayo adna go-aan ma gaaraysid qofka jaadkaa dhahaya haddaad ticketkan waxaan u malaynayaa ninkan sheekadiisu dhagaysanayaa sheekadaadu dhagaysanayaa hadduu arko inay sheekadaada fiican tahay wuxuu ku dhahayaa ticketkan dismiss ama wuxuu ku dhihi half bixi waa qaladaad leedahay inta kale recordka lagaama gelinayo wax unbuu qorshe unbuu la imaanaya qorshahaasna waxaa iska leh jaadka u gaartay laakiin midaanan samayn karaynin qofka hadduu booliis istaajiyo kow ha ka soo bixin gaarigaada min fadlan gaariga ku jiro haddaad gaarigaada ka soo baxda naftaada khatar u tahay qofkan wuu ku shuud garayn karaa wuxuu ku dhihi karaa ey maxaad naftiisu kaala baqaya haddaad gaarigaa ka soo baxdo waxaad u tahay khatar waxaad u tahay booliiska wuxuuna u haystaa inaad xabad soo wadato wax walba macquul marka min fadlan gaarigaada ku jir hana ugu wicin officer iyo waxaa ha dhihin sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu lieutenant yahay waxaa laga yaabaa qof rank weyn inuu yahay chief inuu yahay wax walbaa macquula marka ha dhihin good morning dheh good afternoon dheh markaa wuxuu ku dhihi 3 shay uu ku weydiinayaa driver license registration iyo proof of insurance registration waa platekaada macne dawladda waraaqay bil walba sanad walba markii ku soo diraysaa ama receipt-kaada labadaa midba haddii aad haysato intaa farahaad ka saaraysaa uu baxayaa macnaheeda wixii uu soo fiirinayaa ha admit garaynin waxaa dhihin waxaa maan soo sameeyey nal guduudan maan soo dhaafay ha dhihin asi ka warsug asaa kuu sheegaya maxaad u malaynaysaa hadduu ku dhaho haddaad daacad tahay qofkii haddaad aragto wixii aad samayso runta inaad sheegtaa fiican u sheeg laakiin haddii aadan ogeyn waxaa lagugu qabsada ha dhihin manal guduudanoo haddaay aan soo dhaafay miya ha dhihin yani qofkii runtii sidii adiga wax kugu ogay u sheeg asay go-aan ka gaaray hadhow haddaad dhahdo warnal guduudan aan soo dhaafay ee ticketka aad siisay hadhowna inaad rabtid maxkamad inaad tagtid oo dhahday ticketkii aniga waan ka soo horjeedaa because wax walbood sheegto iyo wax walbood dhahdo waa recorded
wax walba dhahday yani oo booliiska u sheegto hadhow maxkamadu keenaya wuxuu dhahay ninkan waa kan asaga admit sameeyay asaga sheegay inuu nal gaduudan dhaaf ma dhigi kartid marka waan ka dacwoonayaa adoo soo yiri nal gaduudan dhaafay waan sorry ticket kan ii dhaaf ma ka yeelayo hadhowna maxkamadii u keenaya marka admission waxaan ka wada hadii wixii run tahay oo ilaahay kula ogyaa nalkii soo dhaaftay run tahay u sheeg laakiin waxaadan ogeyn oo asbaku waxa laga yaabaa inuu ku dhihi lahaa nalka gaduudana nalka ka dansanay daaro macquul inuu ku dhaho marka tan kalena waxa waa ugu muhiimsan inaadan permit gaar ku wadin oo qof caruurkaada ama cunugaada ama guardian aad tahayna asna inuusan ku wadin permit mar walba la tali adi inuu kula wado adigiina waqti si iskuulka keenko gacanta qofka u degto gaarigii gaaskii breegii wixii markuu barto freeway-gii annaga taa sameynayna annaga marka inta sameeyno macnaheedu ma qofkii license u aadi kara adiga meeshii ka qaaday sababta adigu way ku fudaanaysaa marka qofkii inaad wado qofkii inaad jiiradii because qatar waa less risky marka laakiin hadaa dhahdo qof hadda weligii gaari taabanin meelu aan siinayaa gaarigaadii 10,000 ahaa waa khalaas gaaskaas uu qabanaya waxaad ka sameyn kartaa mar anaga gaarigan ardayga ku dhagan breegu leeyahay istarsadan ka caawinayna waxyaabo badan iyo experience anaga wixii u leh qofkii inaan fiirino laakiin ade gaari 10,000 hadda dad ka qasaaro lacag yar oo bixin lahayd 200 iyo wax la jira oo qofkii wax lagu bari la 6 saacadood 3 maalmood waxa lagu baray ka badan tibanin qof 10 saac qaadan kara qof qaadan kara 8 saac qofka iyo dakhligiisa marka qof walba laakiin waxaan la taliyaa inuu 6 hour basic sida state ka rabo qofka yar laga rabo qofka weyn waaba laga sii rabo ka sii dareen qofka weyn qofka yar uu ka sii qofka yar waa qasab inuu sameeyo qofka weyn hadda waaba daadiya timid waxba timid inuu wax ku sii darsado oo sii kaalmaysto wuxuu uga fiican yahay qofka yar qofka weyn wuxuu uga fiican yahay deganaashada yani qofka yar wax walba ka macquul waa raash waa teen marka qofka yarna wuxuu qofka weyn waxa waa inuu mas'uul yahay inuu asi mas'uuliyad sameeyo waalid hadaa tahay aad cunugii wax tus ilaa qofkii 16 sano haduu gaaro saaxiibkiisa wax soo qaadanaya walaalkiisa wax soo qaadanaya ma ka yeelayo hadaa dhahdo sug ilaa 18 mana u roona asna ilaa 18 hadaa sug dhahdo wax ma ku baranay hadoo aad permitkiisa soo qaadanaya saaxiibo gaari la burinaya marka dhib ay imaanaya marka adigu waxa dan kugu jirta hadaad waalid tahay inaad qofkii classyo ku qaadanaya cunugii keentid classyo lagu siiyo shuruucdii barto wuuna dagayaa laftirkiisa wuxuu dhahayaa war waxaan dhan ma ogeyn waxaan inay xabsi iglinayaan ma ogeyn waxaan inay dhib ii keenayso ma ogeyn waxaan inay creditkayga saameynayso ma ogeyn so marka wax